Yeah. Luxray beat. Skush skush. Popagtaku. Markaad dhalanay waan naxsanayn, waan qilinaynay. Qof hadduu fahmi lahaa luqadii aan ku hadlaynay wuu isdili lahaa niga, koos wuxuu xasuusan lahaa runta. Waxaan dhahaynay kani waa xabsigii laga sheekayn jiray ee loo diri jiray dadka xunxun si ay u soo maraan caqabtooda. Nasiib daro 5 sano gudahooda waa ilowne wixii jiri jiray iyo cidda ahayn iyo weliba luqadeena. Kadib dadka u nimaanay baan rumaysanay inay runtaa sheegayaan oo dad fiican yihiin. Waxayna noo sheegeen inaan ku raaxaysano dunidan, dhimashaduna tahay waxa kaliya oo inaan ka warwarno ay tahay. Anagu mid baan ahayn milyan sano ka hor, wax dhib ah ma qabin, walwal ma jirin, ciqaab nafsadeed dil wadareed been ma jirin. Maxa qaldan laakiin runta ma ogaan doono ilaa aan dhimano oo u laabano halkii ka nimid markii hore. Ha isdilin oo geerida ha u ordin, waa imaan doonta. Dad fiican noqda oo markaa dhimataan xasuustii xumeed ee dunidan aa ka qaadateen ee noqonid mid weligeed ku daba socota. Markaa dhimano kadib waa inaa maalin walba xasuusanaa berigii aan dunidan tagnay, inaa ahayn dad fiican oo wanaag sameeyey. Kuwa nacabka dadka faquuqa kala saaraa oo weliba dila, xasuustaas waxay ku noqon doontaa heel weligeed ah. Kuwii yimid ee dadka karameeyey, jeclaaday faquuqii nooleeyey, dhimashada kadib waxay ku noolaan doonaan xasuus paradise. Taas weligeed aan ka dhammaan doonin. Waxaan u nimid inaan noqono dad fiican, qalbiyadana nadiifiya my people. May nigga Marsha, God bless you. We will go back, we will meet next life nigga. Aan ku reebo fariinta inta la kulmin to back nigga. Yeah, marka dhalanay waan naxsanayn, waan qilinaynay. Yeah, when we born we crying and we talking and no one understand that. Yeah, Popagtaku, ladies and gentlemen, everybody welcome my hood. Luxray beat. God bless you. Ciao.